howlgal qorshaysnaa oo xalay xilli dambe ay ciidanka booliiska saldhigga degmada Cadaado ay ka fuliyeen xaafadda Waaberi oo kamid ah xaafadaha magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayay ku soo qabteen ilaa 8 caruur ah iyo hooyadii dhashay oo muddo 2 sano ka badan ay gacanta ku hayeen jamaacada takfiirka loo yaqaano caruurtan oo meelo kala duwan la sheegay inay ku hayeen takfiirka ayaa ugu dambeyn waxa ay muddooyinkii u dambeeyay ku noolaayeen magaalada Cadaado waxaana xog ay heleen maamulka degmada iyo sariska booliiska degmada Cadaado suurto gashay in xalay xilli dambe ay gacanta ku soo dhigaan caruurtan iyo hooyadii horey ula soo goosatay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u suurto gashay gacan ku dhigista caruurtan muddo badan ka maqnayd aabihii dhalay waxaa jirtay muddo dheer ilmahan Cadaado ku sugnaayeen aabahoodna wuu raadinayay idaacaduhu ka hadla hadda ka hor hooyadoodna way ka hadashay ayagoo isku jawaabaya annaga informationkan wuxuu soo gaaray muddo hore laakiin waxaan la'ayn markii naloo cadeeyay ilmahan in halkaas lagala soo baxsaday Cadaado lagu dhaxqarinayo ayaa waxaan raadinay maadaama ilmihii labadii waalid mid kamid ah uu wato kii kale uu kala dhuumanayo ayaan waxaan isku daynay inaan raadino waalidkii kale oo ahaa aabaha oo ilmaha raadinayay meeshii laga helay waan qoweynay Puntland inay tahay waan horaan u maqalnay laakiin waxaan garaweynay meesha uu ninkaas degan inay Garowe tahay inay Boosaaso tahay inay meel kale tahay muddo fara badan ayaan waxaan ku raad joognay marna Garowe wacaynay marna Boosaaso wacaynay ilaahay fadligiis markii dambe information aan helnay ninka reer Qardha inuu yahaan helnay Qardha ayaa wariyaal deegaanka joogan kaashanay inay wariyaalka Qardha noo wacaan oo ay noo weydiiyaan ninkaas hadda ka hor hadlayay adiga sidaas ayaan ninkii ku helnay ninkaas oo Qardha iska jooga halka fadhiya Maxamuud Axmed Cali ayaa la yiraahdaa halka ninka fadhiyo odaga waa yeelka waaye asagoo Qardha jooga oo aan ogeyn ilmihiisa 2 sano raadinay ayaan wacnay noo imaanayno cidna la hadlin markuu yimidna shalay gala maqribka bacdi soo galay xalana ilmihii waan ka howlgalnay waxaan rabaa markii koobaad inaan u mahad celiyo shacabka reer Cadaado informationkaas noo keenay intay rabaan ha ahaadeen waan uga mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saldhigga booliiska degmada Cadaado oo sidii ugu habooneed u manage gareeyay barnaamijkan markaan u keenay oo ilaa xalay ku howlanaa aad iyo aad aan uga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Cadaado sax ma noqonayso in inta ilmo la soo fakado oo waalidkii dhalay iyo dadkii dhalay laga soo fakado halkan lagu qariyo especially waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo nimanka leeyahay jamaacada leeyahay takfiir ay dadku u yaqaaneen ayaguna magaca kale isku yaqaana ilmahan hooyadooda waxaan noo sheegay inay sidaas noqotay hooyada meesha fadhida dhabarkayga dambe Xaawo Daahir inay jamaacadaas ka mid noqotay oo sababkaas iyadii aabaheeda isku waayeen jamaacad dad reer Cadaado ka mid ah ayaa ilmahaas meesha ku qarinayay oo jamaacadaas takfiirka ka mid ah muddo badanana dacwo badan hore nooga timid cabasho badanna dadka deegaanku ka qabay laakiin intaas waan ka yara gambanayn haddii marka sidaan dhacday in inta ilmo deegaan laga soo qaado meeshan lagu qariyo guriyo loo kireeyo lacagta looga baxsho haddii sidaas sameeyeen insha Allah hadda ka bacdi waan ku taxalluqaynaa maamulkuna waa ka tashanayaa iyo amnigu go'aan aan ka qaadanaynaa aabaha dhalay caruurtan oo dhankiisa warbaahinta ka hadlay dareemayna farxad aad u sareysan maadaama muddo ka badan oo ilmihiisii la midoobay ayaa waxa uu mahad celin u jeediyay maamulka degmada iyo taliska booliiska waxa uuna sidoo kale sheegay qaabka markii hore ee caruurtan gacantiisa uga baxday waxaan raadinayay afar goor baan tagay gaalgacyo 10 goor baan tagay meesha la yiraahdo Boosaaso 4 goor baan tagay labadaas sano iyo barkaasaan raadinayay marbay rabadaankii hore ila soo hadashay oo iyadii ciyaalku la hadleen $200 baan u diray waa soo guureynaa bay tiri dabadeed 100na waxaan ku diray gabadha ay dhashay 300 baa iga gaartay dabadeedna telefoonadii waa dansadeen inta ma seexan ma jiifsan saasaan u wareegayay waxay ku nool yihiin ma aqoon waxaan dhalay bay ahaayeen dadka gabadhan anaga xaq isu kaayahayaan ma jiro sidaan oo kale ay ahayd markii ciidamada booliiska degmada Cadaado howlgal qorshaysnaa oo sidoo kale ay ka fuliyeen xaafadda Karaama ay ku soo qabteen nin la sheegay inuu qayb ka ahaa dad lagu tuhmayay dilka gabar Muqdisho lagu dilay Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado